بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. inta badan bulshooyinka Soomaalidu waxay la socotay in deeta cadi nagu dhacay oo la arbishay oo ani hooyadayna la dilay oo aan la wadaagay baraha bulshada iyo qaybaha warbaahinta kala duwan waxa la sugayay dadkii madaxda u ahaa dadkiina laayay ciidanka markaasi meeshaan tagnay ka ahaa waxay ahayd in jawaab loo wada dhag taagayo oo bulshadu si weyn u dhowrayso oo la wada filayo oo la isleeyahay maxaan ku dhaadayay waxa ka soo bixi doona wax ama garwaaqsi ama garow waxa inanta iyo hooyadeed ku dhacay ah nasiib daro xalay waxa aan midiyaha ka arkay oo soo taagay afayeenka ciidanka Faysal Xiis iyo saddex kale nin oo runtii astaamo saraakiileed ka muuqdaan laakiin degabigoodu deedaniya oo aniga soo kay wadaag taagay si ay ugu jawaabi lahaayeen waxaan halkan soo fadhiistay maanta inaan sidii wax u dhaceen way cadayde aan bal eedaas aan salka iyo raadka oo toona lahayn abuurka inta faraha leeg maxaa la yiraahdaa la igula kacay anagoo waliba dilan anagoo jir dilan anagoo waxaan qabnay cidina soo eegin in maxaan ku dhahday halkan maanta inta xalay la soo istaaga la yiraahdo baabuur bixoo ka soo gashay meesha Faysal Xiis wuxuu yiri saacadu waxa ay ahayd 6:49 minute 7:11 daqiiqo la xilliga aynantu meesha soo gashay si ay u waafajiyaan xilliga gaarku ugu feejigan yahay ee maqaariibta baabuurta de soo gasha ama laga shaki karo ama la maaragtay la ogaande aanay sida harka cad u adeegina ama aanay service bixinayn laamaha kala duwan ee dawladdu wuxuu yidhi nasiib wanaag xabad kuma ridin wuxuu yidhi intay soo degtay askariga dhawanaanaysa wuxuu yidhi garsoorkan la tigsanayna nootaayo sharciye saxeexeen wuxuu yidhi cid baa arrinkeeda dabada ka soo riixaysay waxaan leeyahay anoo arrimaha soo dhan qodob dul istaagaya ta koobaad ee ah saacada aanu meesha nimid ee uu ninkan hadlay ee Faysal Xiis ku sheegay inay ahayd 7:11 daqiiqo la ama 6:49 minute inay ahayd baara 4 iyo dheeraad oo aanay xataa 5 gaarsiisnayn marka salaada casar laga baxo sida ay ku cadahay maraga kaliya ee anigu aanan filaynba u bartiisa ku daabacay ee Xamse Cumar ku joog wiilka la yiraahdo number 2 wuxuu yiri waxay xoog ku soo gashay gaarka kuma soo galina baarkinkan galay oo leeyga dhaqaajin waliba halkan dhiga oo halkan digi lahaa intuu ii tilmaamay waliba igu hore u gal oo igu hada garaysay inay yaro kibir badan baa tahay wuxuu yiri askari bay dhabanaanis qof kasta oo aqli leh wuxuu garanayaa in aan inta qof shicibihi xarun dawladeed yimaado oo uu soo service doonto aanu cid waliba ku dhex dhabanaanin karin de wax aqliga gala in lagu hadlay waxay ahayd in been la sheego been run oo eeg la sheego waxay ahayd in la yiraahdo si fiican waan idinka adagnahay inta meel la soo istaaga la yiraahdo arjuuqday iyo ku yiri juuqde laakiin may hayn in la yiraahdo halkaas ay xoog ku galeen halkaas ay askari ku dhabanaanisay halkaas ciidanka booliisku wax ku baahnay waxaad loola yaabaa runtii jawaab bulshada iyo annaga iyaga dhibanayaasha ahayn iyo eheladaydii toona ay ka filayeen ciidankana ma noomana cuntanto waxaanay muhiimadu tahay adar mil dushiisa lama dhayo Faysal adigu waad hadashay haddii mas'uuliyad ku saaran tahay oo mas'uuliyad qaran ku saaran tahay gurigaaga iyo kaayagu intay isu jiraan wada ogtahay si fiican baad noo garanaysaa
xalay luuqad kale ku hadlays inta nooti ma dad eegi lahayd waxaanu qabno laakiin hal baa xarkaysa ma godlato hal baa xarkaysa ma godlato marka aniga hadalkaagu arrinkayga ma daadifeyn karo waxaan qabana ma nabaradan qabnana ma afuufi karo nagama biin karo qofku waa inuu feedback kaga soo noqday eegaaye beedkaad ka hadashay ee aad anaga noogu jawaabaysay aad soo gashay daadifeynteedii iyo duudsigayga iyo dulmigayga u soo gashay waxa faale lagaaga dhiibtay ba marag cad noo ah waxaan kugu boorinayaa inaad ku laabatatay kuguma ogi damiir ku laabtay oo adiga iyadoo gurigayga kaagu inta ay soo jiraan aan adoona soo dul joogsan anigii hooyaday gacan ciidan ugu dhacday oo nabaradayadii iyo wixii loo geystay waxna dhaqaatiirtu cadeeyeen waxna ay kuwa naga muuqday korkayga ka muuqday yihiin aad arkayso daadifeeyay hadii aad maxaan ku dhaday damiir ku jiro aniga maanta horta iimaad jawaabteen adoo gurigaagu inta ay jiro aanadii soo galin waxaan intaaba ku soo dhaafaya been raad male beeni raad male afar nin oo waaweyn oo ninkii intuu jeelka iigu yimid taliyihii qaybta Muuse Xasan Kaahin intuu jeelka iigu yimid telefoonkayga priority-ga siiyay ee jana ku xigeenku soo diray ee aan maxaan ku dhadayay oranin maxaa qabtaan uu ka mid yahay xalay ku ag taagnaa shaarka ciidanku maaha kuwa dadka lagu bahdilo oo wax bulshada loogu adeego cashuur baanu bixinaa magaaladan ku dhalanay baanu joognaa in la yiraahdo nabaradayada iyo wixii loo geystay gacan saarka nagu dhacay la duusiyo ma yahayn waxaan mar kale maragu qabsanaya bulshada reer Somaliland oo si fiican u taqaana axmadnimada iyo anshaxumada boolisku kula kacaan cidii ay haleelaan anshaxumadooda dadka si fiican u yaqaaneen la kulmay iyo arxan daradooda ayaan marag cad u qabsanaya hadaan askari dhabanaaniyay 24 saacadood ma xidhnaan laha hadaan askari dhabanaaniyay si sibiqo la doonay in xarigaygu baxo meel lagu soo deyn laha hadal iyo wax la yidhi waxba laguma dhaafee nabaradaanu geysanay dhaawacyadanu geysanay waanagan hadlayna halala hadlo hana la tuso oo ehel baanu ka dhalanay loo keeno anaga laakiin sharka dawladana lagu dilay aniga bahay waxa uu kamid ahaa markii qaranka Soomaaliya qaranka ciidankii qaranka Soomaaliyeed markii Soomaaliya burburku ka dhacay aabay wuxuu kamid ahaa ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM 1994 ayaa aabay aniga Hargeysa lagu dhex toogtay waa ayaan daro in maanta mar kale aniga niman calool waaweyn intay meel isu soo kay taagaan oo darajooyin isu soo kay sudaan ay yiraahdaan 2022 2022 sano kadib 12 bilood baan jiray maalintii aabahay la dilay 26 sano kadib dilkii aabahay in la yiraahdo iyadan nasiib wanaag hadaan xabad ku dhufan Somaliland waa beelaysu yimid qaran haduu jiraan cadaaladdeedanu heli lahayn lama maacay intaasoo meelood maxaan ku dhaday intaasoo waxa la yiri laakiin waxaan leeyahay Faysal iyo nimankii ag taagnaaba waxaan leeyahay maqaar saar waxaad ku lumi karaa ma jiro wixii geysateen ee shaarka dawladda ku geysateen idinka maxaan ku dhaday ka jawaabi doona anigu laamaha cadaaladdan ku maqnahay kamana hari doono wixii aniga waliba hooyaday nagu dhacay wax maaragtay garsoorka la waafajinaya iyo wax inta la yiraahdo na lagu baraq jabin karana ma aha anagu dhibanayaal baanu nahay aniga hooyadayba waa nala dilay shaarka dawladdan lagu dilay intuu shicibna dilay oo dhaqaaqay naga mutagin waxa weeyaan inta meel la isa soo taagay dadka waxa loo geysto la maacmaaco soo sorry baan leeyahay in waxa soo kale dhaqanka Soomaalida hablaha iyo haweenkaba xurmadooda ilaaliyay in anaga inta xijaabadina laga dhigay aniga hooyadiiba timaan la jido jidniisa ligan lagu galiyay in la yiraahdo askari bay dhabanaanisa askarigan dhabanaaniyay cadeyntiisii iyo anaga dhibaaxooyinkoodii waa kuwa naga muuqdee
iyo wixii nagu dhacay cadeyntoodii waanu la imaanaynaa wixii ku dhacay cadeyntoodii dhibanayaasha la yimaadaan mar kale shicibka booliiska Somaliland si fiican baa loo yaqaan inta gabadha askar dhabarnaaniso aanay 24 hours xorriyad ku hesheena cid kasta maraka ah anaka waana la dilay waana la daandaansaday waana la xiray waana la jir dilay si bahalnimo laba jirkeyga loo dilay wali jirkeyga qaybaha hoose aan mariyaha ka qaadi kareynin de waxaan leeyahay la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah faysal xiisa wadi lagu yiri sidaa dhe oo tiri anaga waxba nagamay bedelin waxba nagamay bedelin billaah darguudkiisa lama dhayo waxaan ku leeyahay marka xitaa hadlaysan inta been sheegto been run oo eeg sheeg markasto ay dadka tacadi ku dhacaan waxa u sameeysan waji kale xalay marka hadlaysa hadalada waxa kamid aha ama cid kale dabada ka riixaysay ma waxa doonaysa inaan cuqdad qaadno oo bulshada Soomaaliyeed kala jeclaano ma waxa doonayseen in anagu reer meel degan oo wadankoodii ku nool oo magaalada ku barbaaray ku dhasheen aniga iyo hooyadii Hargeysa ku dhalanay oo inta dhex joognay ma waxa doonayseen in maxaan ku dhaadayay waxyaabaha ku tiri ku taanka iyo waxyaabaha bulshada u adeegsataan ee warbaahinta qaarkeed idinka qaxeen ee ilaa maanta guryahoodii ugu soo guriyo noqon kari laayihiin ee qaarkood waalidkooda dhintay u iman laayihiin ee qaarkood jeelasha ugu caadeysateen ila moodayna iyagii xabsigu isa soo raaceen markay dhasheen waxa doonaysan in qaabkaas oo kale annaga xorriyadeedii jiritaankayga ku lumisaan waxa doonaysan in magaalada idinka tagno ma waxa doonaysan in majara habaabin ku sameeysan dulmiga nagu dhacay waji kale u yeeshaan anagu cuqdad ma qabno dadka Soomaaliyeedna ma kala jecelin dadkana moodaysan ma nihin xaq waxaan u leenaynaa laamaha cadaaladda ka eeganayna laamaha cadaaladda hadii wax noo qaban waayaan Somaliland waa beelaysi yimid 1993 ba berbera 1993 ba boorama lagu heshiiyay shir beela ka midaysan yihiin oo samaroon marti gelisay oo isaaq tagay oo marti ku ahaa isaga laftiisu wixii la isla soo qaatay waxay ahayd in sharaf iyo xorriyad iyo jiritaan lagu noolaado war wixii ummadu la haydeen waxbaan u dagaalanay ee qarankii u burburisay ma waxay ahayd in maanta anaga inta halkan lagu dhaxduusiyo meelan u dacwooniyo meelan u ciirsanay baanu garan weyno maxaa doonaysan ma inaan fataano nida Soomaaliyeed baanu aaminsanahay maxaa doonaysan ma in noor baadhaan oo calool baadhaan maxaa doonaysan wargii meel Soomaaliland wax kaga sheegay oo aan ahayn araada guud ama warbaahinta ama dadka kale ay shaqada ku leeyihiin shaqadayadii ah aan wargii aan meel Soomaaliland wax kaga sheegay iyo meelan ku dhibaateeyay iyo meelan nimanka ciidanka laftooda wax ugu sameeyay oo aan ahayn in iyagu inta kibir lagu soo doonteen nabahdileen ma jirto waxay in hadar hadii lagu hadal oo lagu yiri sidaa dhe annaga ciidamada ma oran dibtan qabno ayaa na faraysa inaanu hadallo dibtan qabno ayaa na faraysa inaanu hadallo adigana shaqada iyo mushaharka qaadato iyo dadka ku soo diray iyo kuwa ku ag taagan kula sidaa dhe xariba hadalka ku hagaajinayay ayaa ku faraya inaad hadasho haliba xarkaysa ma godlatee been sheego been run oo sheeg Faysal Xiiso hadii lama cadaaladda iyo garsoorka aanu anagu la tiigsanay dhibaatooyinkii nagu dhacday ay waxba nooga qaban waayaan inamadii reeraay anaga waxna yeelay ee shaarka idinku u soo xidhateen ee darxumada iyo soo jeedkay qabaan shacabka ka jaray cilqabayaasha ah ee idinkuna tiraadaan marka dadka soo cuntaan sidii bahalaha annaga idin hadli doona ee mushaarka kaliya waxa ku qaadataan ay tahay ilaa hadii umada dhaxootiin oo madax qarantiin annaga arinkayga iyaga arinkayga iyo arinkooda ay soo eegi lahaydin cabashadeedii waxay soo gaadhay laanta ugu sarreysay waxa weeyaan hadii annaga arinkayga waxba laga qaban waayo oo sidii raiskiina lagu dilay nalagaga gar qaadan waayo waxa dhici doonta anaguna ehelana ka dhalanay oo reeraan ka soo jeedna oo reerihii heshiiyay ee wax isku darsaday baanu ka mid nahay haday taasi dhici weydo
oo dawladda iyo inamada ricida u shaqeeya naga gar qaadan weydo oo waxa nagu dhacay la eegi waayo reerahoodii baana doonan doonaa deetana qaranku iyadoo kaga fool xuntay oo Soomaali weyn marxaati u tahay oo reer Soomaaliland marxaati u yihiin oo ceebtoodu dibadda taalo ay arrinka gacanta la soo gali doonaan haddana maanta arrinka gacanta la soo gelin haddii lagu yidhi hadal Faysalow anaga dhibaatada nagu taala iyo hooyaday feerjiribka lagu garaacay iyo aniga dhibaatada iyo diilnimaha wajigayga loo geystay ayay farayaad inaan hadlo waxa weeyaan aniga dhibaatada shidaalka igu shubanaysa idinkan waxa shidaalka isku shubanay idinkoo darajooyin la aniga inaan yara isoo kay wadaag taagteen waxa weeyaan inta dadka ciidanka tiraadaan dadka soo cuna marka damada dadka Soomaali weyn ku shaambadaysaan Soomaali weyn deed dulmi ba xuduudo u kala samaysateen oo la haydeen dulmi baa nagu dhacay anagu dulmi dhacayna garan mayne dulmigii baa anaga maanta nagu dhacay sheegi jirteen idinku meelu ka jira anagu maanaan aragay musabixi markii aniga aabahay la diray 1994 wasiirka arrimaha gudaha ayuha iyo amniga maanta marka aniga leeyahay xabad nasiib wanaag bagaanay xabad kugu dhicina waa laanta u sareysa ee wadanka madax meel ka sareysa oo la taabtay ma jirtay Faysal Xiis hadaladiisa waxa kamid ahaa hoodoy lama soo xidhiidhin hogaanka cabashada war hogaanka cabashada ilaahay baan ku dhaariyay inta gar qaadaan oo gar islaam qaadaan bal dadka dhexnoo ahaado hogaanka cabashada may jananka ku xigeenka ciidamada ay kusimi jananka ciidamada ay wadanka ka si jananka aba ka sareeyo ka udhi mise hogaanka cabashada sareeya warna garso baaritaan madax banaan baarinkayga lagu sameyn doona wixii nagu dhacay baaritaan madax banaan iyo komishanka xuquuqul insaanka iyo garyaqaanada iyo warbaahinta iyo eheladayada ayaa ka howlgali doona hadda inta dadka tacadidaan shaarar kale u xidhaan hadda inta dadka tacadid waxa muuqaalka ka xiga aan anigu halkan u soo galo maxaan ku dhahdaayay waxa iyaga waxba laga qaban waayo aan barta la soo istaago waana urbaadaysaane waxa idaan naga filayn baa naga keenan doona waana calool baadaysaane waxaan umadu naga filayn dhagay fard la yiraahdo waxa barateen dad inta dhibaataysan carari mayna ilaa aan waarsano carari maayo ilaa inanka iyagu inanka yaraayo hooyaday feerjiribka ku garaacay qabto feerjirib ka soo garaaco waa wallahi inaan carari oo aanan argaysan ku dhalanay ka tagay oo aanan dadka gardaamisana geeriyaha waalidkood iman waayay aanan kamid noqonaynin oo aanan dhibaatada iyo tacadiga sheegaysan ma in dadka cuqdadaysan ee waxba barin lagu sameeyay gura ku biirnaan doonaysan war xaq qofku halku xaq darro ku dareema dib ugu filan cadaab maanta hargeysa ka weyn oo aan gali lahaa garan maayo hooyaday baa la igu hordilay warin hooyaday feerjirib lagu hor garaaco oo hortayda lagu dilo waxaan ka jecelahay inay xabad inagu dhacdo garsoorka sheegaysa ila tigsa Faysalow irka dad ila baxaysa ila bax Faysalow arrinka hooyaday iyo arrinka aniga igu dhacay midna hoos ma dhigayo ma libiqsan doono dhibaatada iyo tacadiga iyo dulmiga naloo geystay kama libiqsan doono halka u sareysay cadaaladda in isla gaari doona cadaaladda ilaahay baan isla gaari doona cadaaladda caalamka dhex wareegaysa ictiraafka ku weydeen ayaan isla gaari doona meel kasto oo aan isla yahay hiil iyo garabaad ka helaysa ayaan hiil bidi doona ayaan garabka soo saari doona cadaawadda Soomaaliland noo gelinaysaan ayaan falowgeeda qaban doona Faysalow gurigaaga iyo kaygu intay isu jiraan wada ogtahay adoona soo hor istaagina anaga meelaha nooga soo hadasho oo ninkii saldhiga dhexdiisa nagu baaray ayri kama kortaaga didan moobiladii kan ee numbarkayga garaacay ee numbarkayga ku jiro si uu uga dhaxdhaco saldhiga ayaa garabkaaga taagnaa oo hoostaada laga hadlayo lagu lahaa waxa dhe Cabdi Madoobi war ka daayay maraga cad Xamse Cumar ku joognaa furay ilaahay maragiisa marxaatigiisa janaha furo inaan ka garan maayo waa qof islaam oo meesha taagnaa ka daayay ciidanka ka amar qaadan kariyo war ka daayay gabadha gacanta oran kariyo ayaa dar meesha maxaan ku dhahdaa ku soo garab taagnaa marka hadii iskarbistaagii iskarabsi hadii aniga abaay xabaal ka soo hubsateen oo istiraadeen waa agoon oo istiraadeen ciidan ka daba hadli mayso oo istiraadeen ciidan soo agmari mayso oo hablaha caarka maalin walba intay dishaan oo xidhxidhaan oo baabaasataan halka la soo istaagtaan oo maxaan ku dhahdaa wixii shalay toole alaayden waanu ka dagaalan waxa ka dagaalanteen anagu ma aanan arag waxna lamiidaan wadaagin cuqdad baa meel la soo fadhidaanay tii anaga nagu hagardaamisaan oo nagu dishaan adar manihin anagu dad aamusaya
انت كركا ورا دي اللي نشاركوا بك ميرمير شمان كل ما انت هادي اللي شريو حقيقي حقه هو يدي كما عمسي دونه كما نقابسن دونه أنا قاعد نريد النوتايد ونسححنا نوتايد اللي عدت إذا أنا بحي إن النوتايد قرن عبد المذوب يقول كلفي نوتايد ما أنت ساي سهر هايسو أبيك وقتهاي شيء مهين فيصلوا شيء مهين لفها جينا دقة شيء هاي لفها جينا ذحي شاطي هاي إن ما أنت أنا قاعد نتراضو قرصار كلا وافتشنيا قرصار كو حياجي دونا وحنا قبنا يوحد دتك قبانا لا ما قرصاركو كانكو مثل يا قرصارك يسكو كان هذه قرصارك لفتي سنو دو مرين واينا قد نحدد لعن ما بحو والعركي أي هو يدي ده الشيء أي هو يدي كلين ده بدو ولا تجناي حدوث وجلين ويدي بحوي أنا نقول منهن تدين لا ترقصدا لا بيهيو أما ما شكعرة أما هو سؤال ذكروا وردول مقصد لقيه ده كتروا إلهي نقول في مني دول مقيه تعد قدتك كويسان يدخان هذا يدباتوين كسردقيدين يالي نظافة درada ayuu ilaahayna tusay subhanahu wa ta'ala warafkii ummadana waanu hadlayna inta anaga nagaadhay baa u saalan waxa ciidan ku sameeyo aan shuxuma aynkaas yar xadara aynkaas ba maalin walba ku dhacda haweenkii hooyooyinkii namadii iyo rag war waxa weeyaan waxa yaga anaga marag cad buu yeeshay xarumaha garsoorka la tagaynaa Faysal waadii lagu yidhi hadal oo anaga adigana lagu soo ka gudbay xaqayga lagu ma gudbi karo nabarada iyada lagu ma gudbi karo waxaan ugu dhacay lagu ma gudbi karo waana urbaadaysaa waxa maanaan oran waanu hadli doonaa waanu calool hadli doonaa waxa naga raadinaysaan baan oran doonaa Facebookada maanta waxay dadku qaadaadhigayeen in aad tidhi waxa iigu argagax badnayd oo iigu naxdin badnayd maalintii qarxi soo badhacay waa runtii degeerida abahay baa soo raaci lahayd oo maan joogmaan 12 bilood baan jiro waan garanaynin maalintaasna maalin qof kasto oo islaam oo damiirli ka damqaday hay maalinta dad iyo ciyaal anaga nagu soo kabaysanad ku tiraadaan ciyaal oo hadla waxa tiraadaan halkaas aan laga raacay anaga ma hataas cidad noon isbaynaysana anaga xidhiid nagama dhaxeeyo cuqdadna anagu ma qabno bulshada Soomaaliyeed naadir ma kala jecelin hadal intaas aan ku soo gabagabeynay